gole baarlamaan oo adduunka wax walba way ka dhacaan laakiin shantii casho ee ka dambeeyay dhacdada waxaa miidiyaha joogto u noqotay oo ay dumar iyo rag iyo isimo mid uu yahay aqoon-yahan dhammaan beelaha reer Sheekh Isxaaq laga bilaabo Togdheer ilaa iyo Hargeysa ilaa Berbera ay qaada dhigayeen ergaabo hadal cunsuriyeysan oo aan la qaadan karin qodobka koowaad waxa weeyaan ay gaadhay gaar ahaan beesha habar yoonis oo xalay ugu dambeysay suldaankoodii uu hadlayay annaga isimadayadu waxay leeyihiin dhaqan soo jireena kamana hadlaan ficilada noocaasa waa isimo dadka u dhaxa oo Soomaaliyeed weey taasna waxayna tusaysaa colaad gaar ah oo ciro talak habar yoonis loogu gacan qaaday baasha maxamed xadi waxaanuna ugu baaqaynaa dhammaan mas'uuliyiinta saddexda gole ee Soomaaliland kaga jira gobolada tan inay soo galaan magaalada madaxda gobolka Sool si aan beeshooda iyo anagu aan uga gaadhno wada tashi baan ugu baaqaynaa baarlamaanadu weligood way istiraan waa isfeeraan waana la dhameystaa oo arrinta dib baa loo dhameeyaa loo hagaajiyaa laakiin arrintii midku baarlamaanku eekaatay may noqon ee waxay noqotay qabaa'ilkii ayaa soo galay isimadii baa soo galay suldaamadii baa soo galay waxay sameeyeen arrin safa oo aan loo baahnayn inay ka dhacdo dalka Soomaaliland arrintan gacan qaadka ee golaha ka dhacday ee shir gudoonka waa gaar baan u cambaaraynaa waxaan u cambaaraynaa qabiilaysiga gaar ahaaneed gaar baan u cambaaraynaa waxaad moodaa Soomaaliland xirnimadii ay doonaysay iyo dimuqraadiyadda ay sheeganaysay inay ahayd miidiyaha oo ay wada taagto oo tallaabadii xukuumaddu ku dhaqaaqdaba ay miidiyaha intay ka soo horjeestaan yiraahdaan ma yeelayno waxa dawladdu ma yeeli karto waxa dawladdu ma qaban karto oo haddaanay dawladdu tallaabo qaadi karin ma ninka gidaarka caqaarta jaadka ku cunaya badalka mas'uulka haddaanu siilaaya ka ahayn madax haddaanu siilaaya u gudoominayn ma waxa nin caqaar gidaar ku fadhiya badalka mas'uulka war waxaanu leenahay istixi baanu idin leenahay ma aha dimuqraadiyaddu sida dawladnimaduna sida maaha waxa aad hadeerta muujisayna cunsuriyada aad dabooleyseen weeyaan dib isugu noqda Soomaalilandnimadana waad ka been sheegaysaan caddaan waxa ah toddobaadkaas aad ku fashilantay waxaad 25 sanadood qarinayseen dib isugu noqda apologies-na ummadda siiya dadyowga aad ku gafteen raaligelin ka bixiya maca salaadiin maca dibjir ummad wada taagan miidiyaha waa cad waa istixi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان كارلي قولي وقبيل كيسي كارلي تدقى كابر يونس أنه سيدا ما ننمودين لكن هدي أي سلاح ودحضي دي نكا قبيل الله وضع هذا الشيء او احتلالين وأما دي قبيل هام بعض نوغو سامي سيارين تاسي وحاد بولتشيسي حال كبي حسان وانو ايغينا dadka bini'aadamku waa dagaalaba si kastaba oo raggu arabiyeelka isugu dhow waa isqaniinaan baa leeyahay ragana dagaalka waa loo sameeyay xariga waa loo sameeyay isqabadka waa loo sameeyay laakiin waxa la yaab leh taana la yaabi maayo oo waxa la yiri geelu haduu labada hore habeed ku leeyahay واجدوا الله صباحي لبدا دنبه هدو كليه هنا وعاده ولا هاجر خيركو عنصريدا ومركو كعو marka uu ladnaado si kastaba hawo kala waxa ismay way iska yaqaan horta taa kula yahay ma haday isu qabtaan iyo haday tuuteeyaan waa wax lagu yaqaanay reerka caadifadiisa waxyaabahan dhacay miidiyahaanu ka arkanay aad baan uga xunnahay wax la qaadan karana maaha baarlamaankuna dawa islaayada way istilaayeen ma dhacdo deyn la istuutay hore ma dhicin laakiin wax maanta dhacay weeye iyadoo waa wax hore waa wax maanta dhacay yeelkadeeda waxaan naga xumaa wixii haatan dareerikii wixii la qabiilayay nin walba intuu midiya istaagayay tii mid ka xun ku hadlayo dhigu iska taagayo
هذا الكي هوري سيارة وحان كحوجينيا والمرة دي بهاشو ميش halka ay maraso oo la kala dambeynay muuqan weeday oo wax isbedel meesha ka soo bixi waayay oo maamulkii wuxuu soo saraba la soo taagayo oo nimankii maanta ay u bedeleen bahashii cunsuradu bedeleen saddexda gole waxa ku jira dhulbaxanta waxaan inay soo baxaan la socda ku tashananaay